dadkun dib han bogtaaleen oo dhibaatadii wax ka bogtaaleen deegaanadan aan dhow baa i bakool ku kooyan aanu qaar ka mid ah jubbooyinka ku kooyan oo arrimo issues security iyo droughts awaarihi iyo fatahaadihii saameeyay marka deegaanka markii la kooy dadkuna deegaankii magaaladii lamba meeli argo ka degi dawladda hoos waliba qorshaysay si eviction deal oo dadku mar labaad iyo barakaca haatan la barakaceen ya wali la qorshay dawladda hoos wali qorshaysay dhul intii biida dhulkaasay ku kooban 5 kilometer square ah marka 5 kilometer square la bi kadib dadka la dejiyo lahaansho dhulna la sii barwaaqo phase 3 dadka la dejiyo kun boqol iyo konton qoys macnaha qaabka lacag xulidii min sheegdo markii assessment-kii la sameeyay ku bacdo la ogaaday kaamate min sheegdo oo macnaha nugul oo intii min sheegdo hanka dooran markii la ogaaday oo labaad lamaade wali la sameeyay wala row registration kaasoo la sameeyay wal macnaha application oo app min sheegdo brief la row ayon data la sameeyay inta la bilaabo kor wali socday consultation kaas wali ka dhaladay intii dadku warta dibna deji waana deegaanka la deji lankii ogolna deji barwaaqo tiri lan hela meel horta ka soo dhigada guriyo markii naga markan process jira markaas guriyo markan guriyo ku dadka ilaa meel deganyin dadkana macnaha hal mar mas wada guri qoraan markan maalintii bilaa qoys silsidikam inka badanaan sidikam ama lama kam yeel maalintii guurase wali jirtay 10% ama boqolkiiba 10 dad oo vulnerable eedan liidadaan jireen oo vulnerability la oo macnaha qabeen taasoo macnaha la ogaaday mismin sheegdo la qiimo xilliga la diiwaan geliyay barnaamijyada walaasay la ogaaday tiyada ay markan wali macnaha la sameeyay dadkaasi si goon wali la kagaajay guriyaal iyo angaar oo min sheegdo la raw guriyaal dhagax yeelan sameeyay hano soo wali baadana meel kasta la ka dhisnay meel oo asaabis kan dhawaay sida min sheegdo dhulka oo an dhow macnaha ka dhigin meel biyo dadku ku dhaansadaan oo kala dhow waa ka wada jiraa ku guuri markii aan meel degnaayo aan dhulka qabe markii roobku kooy biyo daadad iyo dhibaatooyin badan haysat hadda alxamdulillah inuu ha guurni ananta dagi shooya qaba mangal isay manka degna awlaad korn roomo ku yahay alxamdulillah dadkii gaay ku hoosida hadda dadkii oo deegaanka barakac ka aan geed wali banagadeen dad oo deegaanka deegni xuquuqaadkii dadka shacabka lahaadeen wali balasay dhulkii oo soo dhisnyaalisay sabar loowada dawladda oo si biidi sharciyaysiin mid kale waliba meelo ka dhaladay mashruuc oo kamid ah la hirgeliyay ceelal la qoday jara ceelalkaas oo geedka active oo shaqeeyaan lama ceel kamid ah barwaaqo triga heleen oo dhanka faa'iidi biyo iyo mar walba dadka helaan si sahlan ka helaan ordaan biyo meel dheer ka baajaran oo hoob meelo ceelalka private ka seedan lacag yar biyayeen marka geedka waliba la faa'iiday mashruuc ceelalkii oo hirgeliyay oo World Bank mashruuc crisis ka way ka faa'iiday